maanta waxaanu baranaynaa qaabka ugu fudud aad ku saari karto tusaale ahaan macallin baa tahay ardaydaada waxaad rabtaa inaad maaragtay imtixaanka u dejiso imtixaanadii kala duwanaa la galay baa rabtaa inaad soo saarto ardaydaas waxay keeneen averageka ardayda rabtaa inaad soo saarto celceliska ardaygaas arday kasta u keenay waxaa rabtaa inaad soo saarto ardaygaas ma A buu keenay ma B buu keenay ma C buu keenay ma D buu keenay waxaa rabtaa inaad soo saarto maaragtay maadada ugu sarreysay ardaygaas maaragtay uu keenay intuu keenay darajadu keenay maadada ugu hooseeyay totalkiisii waxaasoo dhan aynu maaragtay soo saari doonaa runtii waa cashar aad iyo aad maaragtay muhiim ah marka waxaan rajeynayaa inaad la socon doontaan min bilow ilaa dhammaad kaliya ardaynimo uma isticmaali karo daatada noocaana yani ama waxyaala kala duwan maaragtay markaad sii fahanto aad maaragtay u isticmaali kartaa sharikadaha oo kaleeto waa isticmaali kara maaragtay alaabta maaragtay ay gadayaan oo kaleeto totalka alaabtaas qiimahooda oo kaleeto shayga ugu yar qiimihiisa oo kaleeto waa lagu bedeli karaa halkan shayga ugu badan qiimihiisa celcelis ahaan maaragtay qiimaha shaygaas intuu yahay shayga qualitygiisa oo kaleeto iyadan halka lagu bedeli karaa marka laakiin inaga maanta su'aalahan wuxuu ku saabsan yahay ardayda runtii waa cashar aad iyo aad maaragtay muhiim ah isla markaana ku anfici kara maalin uun oo ka mid ah noloshaada Microsoft Excel ayaynu isticmaalaynaa waxaynu ka bilaabaynaa qaabka data loo geliyo softwareka Excel xaggan waxa ku yaala waxaa noogu yaala sheets yani waa waraaqahan su'aalahan xogta waxaynu ku diyaar wuxuu noogu jirtaa sheet 1 xogta waxaa noogu jirtaa sheet 2 marka waxaan rabnaa inaan sheet cusub ama page cusub in la soo baxano oo aynu si aan xogtan u qorno halkan ay ku qoran tahay calaamadan blast ay ka muuqato oo new sheet ayaad click siinaysaa dabeetana automatically waxa ku soo baxaya page cusub student ID ayaynu maaragtay ka bilaabaynaa waa roll numberka ardayga student name ayaynu ku xijinaynaa waa magaca ardayga waxaynu ku xijinaynaa maaragtay maadooyinka markaad bilaabayna su'aalaha waxaan ka bilaabaynaa math xisaab waxaynu ku xijinaynaa physics oo kaleeto waxaynu ku xijinaynaa English totalka intuu keenay maadooyinkaas waxaynu ku sii xijinaynaa minimumka maadada ugu hooseeyay waxaynu soo gaabsanaysaa MIN ayaynu soo gaabsanaynaa waxaynu ku xijinaynaa maximumka maadada ugu sarreeyay intuu keenay waxaynu ku xijisanaynaa averageka grade-ka ardaygaas uu keenay ardaygaas ma A buu keenay ma B buu keenay ma C buu keenay ayaynu iyadana ku qoranaa sorry page baan ka boday mail baan ka boday waxaan ku qoranaa halkan grade yani ardaygaas grade-ka wuxuu keenay ma A buu keenay ma B buu keenay ma C buu keenay tan naga tirtir 100 ka bilaabma tusaalahan 102 waxaan gelinay hadda saaxiibayaal waxaan gelinay labada arday ugu horeeya roll numberkooda ama ID numberkooda in tusaalahan waxaan haysanaa 20 arday oo kale ama 15 arday ama 30 arday marka hadaynu xabad u gelno waqti badan banay qaanaysaa waxaan isticmaalaynaa trick yar trigaas waxa weeyaan kan koowaad baad dooranaysaa deetana kan labaad baad dooranaysaa marka labaad doorto waxaad samaynaysaa halkan geeska ugu hooseeya baad tegaysaa oo cursor-kaada geynaysaa nuuska deetana markay calaamad ay plus ku noqoto baad qabanaysaa hoos baad u jiidaysaa marka inta arday adigu aad ka rabto ayaa maaragtay geysanaysaa tusaale ahaan aniga waxaan ka rabaa 15 arday baan ka rabaa tusaale ahaan okay 15 arday marka saasay maaragtay aynu ID numberkooda aynu ku qornay magacyadii marka qoraynaa tusaale ahaan kan koowaad waxaan leenahay waxa la yiraahdaa Muuse waxaynu qornay oo dhammaystiray ardayda magacoodii haddana waxaynu sameynaynaa maaragtay maadooyinka intii keeneen tusaale ahaan ardayga ugu horeeya Muuse ayaynu xisaabinaynaa xogtiisu dhan dabeetana inta dambe waxaynu sameynaynaa qaab aad iyo aad u fudud ayaynu maaragtay ku sameyn doonaa aynu ku buuxin doonaa waxaynu ka bilaabi doonaa Muuse tusaale ahaan xisaabta wuxuu keenay 80 physics-ka wuxuu keenay 55 English-kana waxa ka soo qaada inuu keenay 90 marka Muuse totalkiisan soo saaraynaa equal dabeetana waxaad qoraysaa keyboard qoraysaa sum markuu soo baxdo laba option baa haysataa inaad meeshan sum qorantay aad double click siiso saas oo kale isaa kugu soo gasho iyo inaad samayso sum markaad qorto inaad taabato calaamada tab ee maaragtay computer keyboardkiisa dabeetana automatic ay maaraysaa kugu soo baxaysaa marka sum waa isku darkii waxaad dooranaysaa maadada koowaad dabeetana waa soo jiidaysaa ilaa maadada ugu dambaysa qaabkan kugu soo baxaysaa dabeetana bishii aad furtay ama automatically ku furantay ayaad maartay xiraysaa waxaana taabanaysaa equal okay waxaan rabnaa inaan soo saaro hadda maadada ugu hooseysa ee uu keenay ama maadada ugu darajo hooseeyay ninka la yiraahdo Muuse ayaan rabnaa caadi ahaan markaan isha saa uga fiirino
muuse waa kan saddexda maadana waa kuwan markaan qiimeeyno ish ka fiirino maadada ugu hooseysa oo keenay waa 55 marka 55 taasaan waxaan rabnaa inaan formulahan ku soo saaro waxaan leenahay equal minimum baa qoranaa min deetana calaamada tab baa taabanaysa keyboardkaaga waxaad dooranaysaa marka maadada koowaad baa kasoo bilaabaysaa waa soo jeedaysaa ilaa maadada ugu dambaysa saddexdii maado deetana bishii ayaad xiraysaa markaa kadibna waxaa ku dhufanaysaa enter waxaa inoo soo baxday maadada ugu hooseeya inay tahay maadada physics-ka oo uu keenay continuation okay maadada ugu badan marka muuse marka ish saa fiirino maxay noqonaysaa maadada ugu badan waa saddex maado kaliya haystaa waa continuation 80 iyo 90 marka waxaan waa caadi ahaan markaan u qiimeeyno waa maadada Englishka ayuu darajada ugu sareeya haystaa oo ah 90 marka qaabka u saarayna waxaan taabanaynaa equal waxaanu keyboard ka qoraynaa maximum max tab baan taabanaynaa deetan waxaan dooraynaa maadada koowaad ilaa maadada ugu dambaysa saas u jeedinaa kadibna bishii ayaad xiraysaa waxa ku soo baxaya marka maadada muuse uu ugu sareeyay inay tahay maadada Englishka oo ah 90 inuu keenay average-ka ama celceliska maadooyinka muuse marka la isku daro celceliskooda ayaan rabnaa inaan soo saaro waxaad taabanaysaa equal deetan waxaad qoraysaa average waatan halkan hoos kaga soo baxday ku dhifo deetana average-ku wuxuu la shaqeeyaa saddexdan maado ayuu la shaqeynayaa deetana waxaad ku dhifanaysaa maadada koowaad waa soo jiidaysaa ilaa maadada ugu dambaysa bisha ku xiraysaa xaalada equal tan ugu muhiimsan marka xoogaana aan moodo inay u adag tahay oo kuwii hore formulada kale ay ka yar adag tahay waa tan oo ah grade-ka ardaygan muuse waxaynu soo xisaabinay totalkiisii waxaynu soo xisaabinay maadada ugu hooseeyay waxaynu soo xisaabinay maadada ugu sareeyay waxaynu soo xisaabinay celceliskii maadooyinkiisa marka la isku dardaro hadda marka waxaynu xisaabinaynaa ardayga muuse ma A buu keenay ma B buu keenay ma C buu keenay ma D buu keenay ma E buu keenay ma F buu keenay wax kasta marka Excel-ka waxay ka bilaabataa formula kasta Excel-ka waxay ka bilaabataa calaamada equal haddaan equal qorin wax ku shaqeynaya ma jirto Excel gudihiisa marka qoranaa equal dibetana waxaa leenahay if markaa qorto waxaad dooranaysaa marka grade-kani marka wuxuu la shaqeeyaa average-ka totalkan lama shaqeeyo minimum iyo maximum lama shaqeeyo kuwana si gooni lama shaqeeyo kaliya wuxuu la shaqeynaya average-ka marka waxaa leedahay if haddii i2 oo ah average-ka muuse uu ka weyn yahay ama la eg yahay calaamadahan keyboardka ayaa dabcan ku yaalin 90 darajo comma waxaad furanaysaa calaamadan deetan waxaad leedahay waxaad siinaysaa muuse e calaamadii aad furtay baad iska xiraysaa deetana waxaa leedahay comma mar kale aad misna qoraysaa if haddii eedii waynu qornay qiimaheedii eed waxaan nidhi haddii ay maaragtay average-ka muuse uu la eg yahay ama ka weyn yahay 90 qofkaas muuse ah waxaa siinaysaa e okay bidii hadda marka sameeynaa bi qaabkii hadduu qaabka u keeni lahaa ama qaabkii hadduu keeno intii hadduu keeno oo bi qaadan lahaa if baa leedahay average-ka muuse uu ka weyn yahay ama la eg yahay 80 comma baa leedahay calaamadana furanaysaa waxaa siinaysaa haddii uu la eg yahay ama ka weyn yahay 80 waxaa siinaysaa muuse b calaamada iska xir deetana comma de sidaas marka wax ku dhamaaday a iyo b grade-ka a iyo b okay mar saddexaad if baa leedahay waa haddii average-ka muuse markasta average-ka la shaqeyna average-ka muuse oo ah i2 ay ka weyn tahay ama la eg tahay 60 comma baa leedahay calaamadan furo ninka muuse waxaad siinaysaa c grade c comma mar kale if ayaad leedahay waa haddii average-kaa soo qaadanaysaa average-ka muuse uu ka weyn yahay ama la eg yahay 40
comma calaamadan soo qaado waxaad siinaysaa ninka d calaamadda xir comma misna dheh if haddii averageka muuse uu ka weyn yahay ama la eg yahay 25 comma baa leedahay ninkaa qof muuse ah waxaad siinaysaa e ku xir calaamadda misna comma dheh if misna waa haddii averageka muuse markaste averagekaas doonaysa if markaad tiraahdo markaas waxaad doonaysaa averageka muuse uu ka weyn yahay ama la eg yahay 15 tusaale ahaan comma calaamadda furo ninkaa waxaa siinaysaa waxaa siinaysaa f qofkaasi waa ku daayay khalaas dabeetana f mar haddaynu gaarnay waxaanu samaynaynaa intii aynu bracket aynu soo furnay ayaynu dib u xirxiraynaa imisaynu soo furray wuxuu ahaa 1 2 3 4 5 6 bracket baan soo furray ama 6 bil baynu soo furray af Soomaali ahaan 6dii bilood baa xirisaa 1 2 3 4 5 6 lixda markaad ku dhif aad xirto waxaa ku dhifanaysaa calaamadda enter waxayna soo baxday ardayda kale ayaynu iyagana aynu maartay xogtooda gelinaynaa ardayda kale xogtooda marka laga reebo daatadan halkan oo aynu buuxinayno oo ah ardayda inta kan keeneen inta kale waxaan u sameyn doonaa qaab aad iyo aad u fudud oo maartay aan hawsha aynu ka marnay maartay muuse ardayga ugu horeeya muuse ayna ka marayn marka waxaan sameynaa ali oo kale waxaanu gelinaynaa tarjooyinkiisaynu si manual ahaan u gelinaynaa waa babsiinayaa si ay samaartay waqti nooga qaadan marka aynu soo gelino maadooyinka inta keenan ardayda waxaynu soo saaraynaa totalkooda minimumkooda maximumkooda averagekooda iyo gradeka ay keeneen marka muuse markaynu sameynay waqti badan buu naga cunay kuwan marka waqti baa naga cuni maayaan waxaynu sameynaa trigger ayaynu sameynaa waxaa tegay tusaale ahaan totalka meesha qorantaa tegaysa calaamadda cursor markuu ku noqdo isku talaabta dhuuban markuu noqdo noocan oo kale ayaad hoos u jiidaysaa ilaa waxaad geynaysaa maartay arday ugu hooseeya marka si automatic waxa noogu soo baxaya arday kaste totalka uu keenay ayaa maartay inoo soo baxaya tusaale ahaan kan oo kale hadaan joogaran in run tahay waxaan aynu sameynay kan waa totalkii ardayga maxaa la yiraahdaa maxamed marka totalkiisu waa 70 sida maartay formada inoo sheegtay bal aynu marka isku dayno isku daro 25 waa imisa waa 50 lagu daray 20 waa imisa 70 marka halka waxaan u cadaatay inay formada tahay formada sax ah waxaan tagnaa minimumka yani maadada ugu hooseeyay arday kaste aynu maartay iyadana aynu soo saaraynaa marka waxaan sameeynaa intii aynu gudbin lahayn formada waxaan sameeynaa sidii caadiga ahayd kana tagnaa alaabda markay isku talaabta dhuuman noqoto ayaynu hoos jeedinaa ilaa meesha ugu hooseysa maxay noo soo baxday haddana arday kaste minimumkiisa intuu haysto يعني ومادة وهوسي أرضي كست أنتو هايستو سؤالها أرضي كان ويمسا ومصلح مادة وهوسي سمحنا هايستا هل واتن وهل ماكسيمام كأرضي كست مادة أنتو قبل أنتو هايستو waxaynu ku xijinayna average kana sidii si lamid ayaynu sameynaa markay calaamadu ku noqoto isku talaabta xaatada ama dhuuban ama khafiifka ayaad hoos u jeedaysaa ilaa meesha ugu hooseysa sidaasna waxaa noogu soo baxaya arday kaste averagekiisa sidoo kale tan gradeka arday kasta intuu keenay iyadana waxaan sameynaa waa dul tegaynaa meesha ugu hooseysa qabanaynaa hoos u jeedaynaa iyadana waxaa noo soo baxaya arday kaste inta uu keenay marka saaxiibayaal waxaan rajeynayaa inaad wuxuun ka faa'iideen cashirka maanta oo runtii ah cashir aad iyo aad muhiim ah qof kastana maartay anfici kara muuqaalada noocan insha Allah waan sii badin doonaa haddii la ka dhigo waxaan rajeynayaa inaad maartay haddii aad ka heshay cashirkan inaad like saarto asxaabtaadana aad maartay la soo wadaagto salaam